waxba kama tegin jazaahu allahu khayran intii aan rabnay oo nooga jawaabay waxaan u soo gudbaya sheekh almis almasri horta kan waxaan rabnaa magaca almis in lanoo laqbeeyo horta dadku way isweydiiyaan labo taariikhaka dacwi waxyaabihii ku ta'hiiriyey hadday noqon lahayd kutub hadday noqon lahayd maqaalaad hadday noqon lahayd shakhsiyaad dabcan masar haddaad joogtana ta'hiirka ugu badan waa xaggaas kusoo dhawow fadiilat sheekh وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتوي أذكتها يقفك إنه نفتي سكشاكيو نفط هذا كشاكيه والوان سكودي دونا وامركي كواد النورش إذا عن كشاكيو يا مشكلة ما شاك نفط هذا كهذا الله المستعان الله المستعان دكتور علي وحير مقع المس مقع وحلا هذا المس يحيى حاجي إبراهيم المس ومقع صوماليا وبورها صومالي لاند بور كتالا أو عيال شيخ أكتيدا كتالا لا يدا المس بور تالا يدا مركب بور تاسو أبو رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول مقع دري كاسوا مقعي إسكشة كنتي هنقل هذا الله المستعان أنا waxaan ku soo koray qoys waxaan ku soo koray waxyaabo kala duwani ay ku jiraan qofkii koowaad ee saameynta nagu lahaa waa awowgay aabahay adeerkii sheekh maxamed warsame sheekh maxamed yare raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica oo caalim ahaa oo caabid ahaa oo nin maalqabeen ahaa oo nin dumar badan guursaday ahaa caruur fara badan ka tegay ahaa oo aad diinta xagga galbeedka magaaladii aan ku dhashay gabilay agagaarkeeda sheekh ka ahaa qaadi sharciyana noqday xilligii isticmaalka ingiriiska qaadi noqday ilaa burco iyo ood weyn ka noqday qaadi mantiqadana qaadi sharciya maxay tole ahaa حاج شيخ خاص رحمة الله عليه سامين وين أيور هيك كلها مركا حلقاسي وحيا هيد نزعة دينية وحقي شيخ نمضى يأووها وحكلو قوس كيجا كجري قوس سياسي كدش مركا أبتغي أحمد يوسف دعالة وها وزيركي الرماها الدبدة دولتي صوماليا دولتي عبد الرزاق حاج حسين وزيركي ugu yaraaye wasiirka arrimaha dibadda xilliga noqda aabahay raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica diblomaasi siyaasi yuha waa safiirkii dadkii ugu horeeyay wadanadan Scandinavia Sweden safiir ka noqda marka aftigay kala waa taqaano waa boobe Yusuf Ducaale waa aftigay marka wax fara badan qoysas dhanna diinta ka haya dhanna ka siyaasadaysan ayaan maxay toolay ku jirnay oo ku soo kornay awow raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica waa qofkii koowaad ee diinta ee bilaaba ee gabil inoogu dhiga isaga iyo caruurtiisa iyo aniga maxay toolay dad aan wax isku ahayn maalin buu gurigeenu yimid aabbo raxmatullaahi calayhi markaasuu aabba igu yiri awowga u shaqee habeenkii buu qiyaamileel tukanayay waan ag fadhiistay marba weysada iyo cuntada iyo shaahan kariya xagga khidmadana xariif baan ku ahay markaasa intuu saa iyo eegay buu yiri warqadii qalin soo qaado warqadii qalin baan soo qaatay asmaa'ullaahi alxusna buu ii yeedhiyey 99kii qor buu igu yiri intaan tukanayo xifdi halkii baan bilaabay marka Allahu raxmaan raxiim almalik alquduus salaam ku celceliyay markuu salaamo naqsaday 4 ragcadood 2 iyo 2 markuu salaamo naqsaday buu igu yiri ma xafiday kasaan ku dhahaa awow ka bax buu igu yiri waa ka baxay salaadii buu iska watay ana agtiisaan seexday aroortii buu u yimid aabba noo soo galay markaasuu ku yiri ninkan waan ka xaynayaayo azhar baan geynayaa ninkan diintu soo baranaya aabbana waa fasaxo wuxuu yiri waa yahay maxay toolay sidaa maxay toolay ku anbabax 8 jir ama 9 jir baan ku tagay qaahira 8 سنوات 9 سنوات qaahira ku tagay masaajidkii waxaan seexan jiray masjid al-azhar aan seexan jirnay
رواقي الأفارقة مسيحان جرنو بلا البابة سنغال iyo ragaasan la fadhiyi jiray aabo sanadkii mar buu iman jiray qaahira marka muadin masaajidka azhar ka eedaama ayuu iigu dhiibi jiray sanadkii waxaan cunayo oran jiray quraacdiisa iyo qadadiisa iyo cashadiisa halkaa ku sii halkaana maxay tolay ha fadhiyo markaasaan ka bilaabay ibtidaa'igii i'daadigii thaanawiyadii jaamacaddii 14 sano ayaan halkaa maxay tolay ku jiray oon joogay alxamdulilah rabbil caalamiin sheekhna sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi intaanan qaahiro tegin xamar baan ku horeynay awoow waa igu yidhi xamar tag xamar baanu tagnay 2 sano 3 sanaan xamar joogay madrasadii iyo masaajidkii sheekha ayaan tegey waxaa macallinii ahaa macallin cadaawe oo malcaamadii dibadda joogi jiray habeenkiina sheekh cabdiqaadir ayaa iga muraajacayn jiray 3 sano kadibna waxaan u dhaqaaqnay qaahira ayaan u dhaqaaqnay azhar diinta iyo culumta shariicada ayaan 14 sano maxay ku dhex jiray nasiib wanaag wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo karamkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay waafajiyey waxaan ku beegmanay 1980kii dhammaadkiisii baan galay qaahiro tegey marka waxaan ku beegmanay xilli ay ducaa fara badan ee culamo waaweyni masar ay joogaan ayaan maxay ku beegmanay marka alxamdulilah rabbil caalamiin sheekh mustafa alxalawaani waa sheekhaan kula kulmay 1985kii sheekh cabdirashiid oo qurux badan oo dheer oo caso shandad yar maxay tooleysito oo soo galay masjid sayidna alxuseen oo cidhifkiisa sheekha quraanka uga baxayay oo sheekhuna quraanka sheekh mustafa alxalawaani uga baxay oo fadhiistay oo sheekhu igu yiri waa sheekh cabdirashiid Soomaali baa tahay asaan ku ha akaad ka timid halka ayaa halkaa soo sheegayo markaasaan ku xamarna waan soo maro malcaamadii aabba ayaan soo maray markaasuu igu yiri maxay toolaakeed joogto aftiyaan u sheegay axmed yuusuf ducaalo ku yiri aftiya sheekhuna saaxiib bay ahaayeen way kaxeeyo maalin aan aad u gaajoonay bay ahayd waxbana baan haynin sheekha way habeeyay jazaa allah khair fiican baanta kulli duca way iga dhacday ila tahay ogaa yar dhagactu igu laabay wuxuu yiri masaajidkaaga fadhi kelmad buu igu yiri markaa sheekh cabdirashiid waa kelmad buu igu yiri maalintaas inaad wax barato ma doonaysaa wuxuu igu yiri Soomaali waabad u noqon doontaa waad u tagi doontaa halkan waqtiga yaanay kaaga lumine culimada ag joojoogo masaajida ha ka bixin halka fadhi waa dardaarankiisa sheekh jazaakallahu khayr wa barakallahu fiih culumtii markaa wixii culimo waaweyn buu ilaahay fadligiisa iyo masar inaan kula kulmo sheekh shacraawi waa la kulmay tafsiirka quraanka oo kaamil waa ka qaatay sheekh maxamed al-ghazali waa la kulmay fadlillahi tabaaraka wa taala sheekh yusuf al-qaradawi waa la kulanay sheekh maxamed bikhayd al-mutai'i ninkii dhamaystiray majmuuca alxamdulillahi rabbil caalamiin kitaab al-janaiz majmuuca isagaan ka dhigan anigoo yar waxa kadalika aan aad u xasuustaa abu luqat al-arabiyya abu fihr sheekh maxamuud shaakirna hal kitaab baan ka soo qaadanay al-asma'iyat gurigiisaan maxay toole kaga dhiganay marka alxamdulillahi rabbil caalamiin rag fara badan oo ducaa ah oo waaweyn ayaa anaga oo yar aanu maxay toole u helnay fadli iyo karam inaan hoos fadhiisano ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwii ku camal fala waxa ay sheegayaan waxay soo barteenna kuwii ku camal fala uurkooda iyo afkooduna isleega ilaahay ha naga dhigo riya iyo istustusnimana ilaahay nagama dhigo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala wajazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum